وعنا wanaagsan daawadayaal halka aad naga daawanaysaan waa Wardowr Media qodob wareedkana waxaan ku soo qaadanaynaa khilaaf soo kala dhexgalay Ruushka iyo Sacuudiga iyo dawladda Mareykanka oo markaasi labadooda dhexdooda ku ciyaaraysa dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Mohammed bin Salman ayaa waayay saaxiibo badan oo dhanka siyaasadda ah isagoo sameystay cadow aan hore ugu foognayn kadib markii uu noqday shakhsi gacanta ugu jira madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxaa soo ifbaxay khilaaf soo kala dhexgalay Ruushka iyo Sacuudiga kadib markii la isku maandhaafay arrimaha shidaalka oo Sacuudigu badiyay soo saaristiisa shidaalkuna uu hoos u dhacay qiimihiisa adduunka oo dhan dhawaan ayay ahayd markii madaxweynaha Mareykanka uu qadka taleefanka kula xiriiray Mohammed bin Salman isagoo lagu wargeliyay muddada wada hadalka labadan mas'uul in qolka uu ku sugan yahay Mohammed bin Salman uu ka saaro dhammaan howlwadeennada iyo saaxiibada la jooga taasoo cabsi iyo walwal ku abuurtay dadka ka agdhawaa oo ka walwalsan cabsigelinta lagu hayo Mohammed bin Salman ila wareedyo xogta u soo dusiyay warbaahinta ayaa sheegay in Sacuudigu lagu wargeliyay inay badiyaan soo saarista shidaalka ee xilligan haddii ay ka madax adeegaan ay dawladda Mareykanka kala bixi doonto ciidamadeeda ku sugan Sacuudiga arrinta wada hadalka Trump iyo dhaxal suga Mohammed bin Salman waxay khilaaf iyo shaki dhexgelisay qoyska boqortooyada oo ilgooniya ku hayay talaabooyinka Ibn Salman arrintan dawladda Mareykanka ay ka wadatay arrimo siyaasadeed ayaa Sacuudigu u hoggaansamay waxayna soo saareen shidaal ka badan kii ay soo saari jireen waana sababta keentay qiimaha shidaalka oo aad u raqiisay dawladda Ruushka ayaa aad uga xumaatay talaabada dawladda Sacuudigu ku jabisay shidaalka iyagoo oo ku wargeliyay dhimista soo saarista shidaalka iyo in suuqyada aan laga dhigin kuwa fawda laakiin Mohammed bin Salman wuu iska indhatiray hadalka Ruushka taasoo abuurtay mugdi labada dhan ah iyo dagaal dhanka shidaalka ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo markii hore u muuqday inuu dana siyaasadeed ka lahaa ujeedkan ayaa markii xaaladdu ay xumaatay bilaabay in labada dhan uu isku tuso in xiisadda uu dhexdhexaad ka yahay oo uu xalinayo waxa uu mid walba u sheegay siyaabo dagaalka shidaalka lagu soo afmeerayo waana uu ku guuleystay isagoo oo god dheer ku riday Mohammed bin Salman oo xurgufta Ruushka iyo hanjabaadda Mareykanka u jeediyeen ay muujinayso jilicsanaantiisa siyaasadda dibadda gaar ahaan Mareykanka oo kubad ku ciyaaraya xilli walba xukuumadihii hore ee Sacuudiga soo maray xiriir dhow ayay la lahaan jireen Koongareeska Mareykanka oo wixii madaxweynaha Mareykanka uu ku adkaysto ay u soo adeegsan jireen laakiin ninkan dhalinyarada waxa uu saaxiib dhow ka yeeshay madaxweyne Trump iyo dawladdiisa dhaxal sugaha Sacuudiga waxa uu lugaha la galay ayaa warbixintan oo Reuters lagu daabacay lagu yiri dhowr fashil oo ay ka mid tahay weerarkii Yemen xarigii haween u ololeeya xuquuqda aadanaha dilkii Jamal Khashoggi iyo tilaabooyinka khilaafka shidaalka ee Ruushka iyo Sacuudiga oo ah mid lagu degdegay Mohammed bin Salman wax xiriir dhow ah lama lahan Koongareeska Mareykanka haddii asaga iyo madaxweyne Trump khilaaf ba'an u soo kala dhexgalo waxaa suuragal ah in si fudud ciidamada Mareykanka looga soo saaro dalka Sacuudiga iyo waliba in lagu degdego in laga qaado dhaqaale aan aqligu keeni karnin waana sababta sanad walba iyo waliba bil walba looga qaado Sacuudiga dhaqaale aad u badan oo u dhigma baad taas oo looga qaado joogista ciidankooda ee dalka Sacuudiga intaas ayuu nooga eegyahay qodob wareedkeenan ku saabsan khilaafka Sacuudiga iyo Ruushka ee dhinaca shidaalka haddaad nagu cusub tahay fadlan subscribe saar haddii aad hore noola joogteena gambaleelka taabo si warbixinadeena dambe ay kugu soo dhacaan